معاك دوا ومعاه هرتو سكر وين معاه حلو كذا سكرتنا waxaa ka timaada dad cuntada aan cunayno marka inaad waxa weeyaan jirkii wuxuu saari kar waay wixii aan cunnay cuntadii ayaa dhiigii ka bixi weeyday sokortuna horta waa fuelkii qofku oo isticmaal lahaa jirkeenu isticmaal lahaa ama waa shidaalkii marka waa halkii ugu waa glucose bay taagan tahay marka glucose ayaa dhiiga sabaynayso aan ka baxaynin sababta ugu bixi weeyday waxa weeyaan abuurtan system ilaahay noo abuuray ayaa waxay ku salaysan tahay in hab shaqo oo de rabaaniya jira oo marka wax iska dhimaan ay wax istaagayaan qofkii aan ka qabin cuntadiisii uu cunaya dhigii ay glucose galaysa waxa jira de hormoon ka shaqeynaya oo ka qaaday sokortii dhiiga oo geynaya halkii looga baahnaa lagu gubayay ay marka de tamarta ka soo baxayso markan macaanku yimid min saxween sokortii ayaa dhiigii ceegaagta aan ka bixin marka waxyaaba ugu horeysa qofku isma ogaanayo laakiin markii aad u badato ay gaadho threshold meel kaliyaha aan xilcin karin ay gaadho halka kaliya laga saaray waa kaliyaha qofku isku dareema marka waxa laga yaabaa qofkaas marka muddo badan in macaanka soo qabay marka labada qodob ee caawday u badan aynu ka hadlayna waxa weeyaan dawa glucose iyo insulin oo ahay wixii de ka shaqeynayay xanuunkana ma xanuun imka cusub xanuun muddo badan soo jiray laakiin bulshadeenu deemka dhawaanahan ku soo batay sababtuna ay tahay dil waxa isbedelay hab nololeedkeeni ayaa isbedelay oo markii hore de hab nololeedkeenu wuxuu ku saleysanaa de tacab ku saleysanaa iyo hawl gacmeed ku saleysanaa laakiin imka wax batay sedentary life dadku waxa fadhi bay u badan yihiin ma taasa kalifaysa in maadaama dhaqdhaqaaqii jirku uu yaraaday waxyaabo badan markaa qofkii ay ku soo kordhaan culays baa ku soo kordhaya miisaan baa ku soo kordhaya miisaankaas waxyaabo markaa dhimaya in insulinta ay waxtar yeelato waanu iman doonaa dee sababaha dambe way kala duwan yihiin macaanka waxyaabaha sababay suu kala baxayo laakiin intaas in macaanku yahay sokortii oo dhiiga ka bixi weyday oo de markaa u baahan in inay dee halkeedii tagto mahadsantahay doctor aynu ka hadalno sonkortaa dhiigga ku jirteed sheegaysa ee ka bixi weyday ee la kharash gareyn waayey waa tan xanuun noqotay oo macaan baa layidhi waa imisa nooc ma nooc keliya macaan baa la isku yidhaha mise waa la kala qaybiyaa macaanku waa qaybo kala duwan buu u qaybsamaa laakiin waxa ugu muhiimsan oo ugu waaweyn dee type 1ka oo badanaa ah caruurta ku badan oo nooca koobaad ama la yidhaha insulin dependent baa la yidhaha magacyo badan buu leeyahay inkastoo dadka waaweyn bade marka dambe ay insulin noqdaan insulin dependent noqdeen type 1 isu rogayo bahalkii iyo type 2 oo ah kii dadka waaweyn ku dhacay inkastoo imka ay jiraan dad yaryar markaan dad yaryar leeyahay uma jeedo dad 20 meelaha joogo dad aan 20 ka gaadhin oo type 2 macaankoodu noqonaya waayo dhowr caruur ayaan arkay aan ilaa imka ku daweeyey tablet aan insulin aan siinin macnaha kiniin aan ku daweeyey oo kiniinkii qaatay oo kiniinkii dib u jawaabay ya marka waxaad arkaysaa in awal wuxuu ahaa 85% type 2 macaanku inuu ahaa minka 45% ka mid yahay inuu da'dii yareyd noqonayo 5% ha meelahaas da'dii uu ku soo kordhay taasoo ay kalifayso sedentary lifestyle-kii isbedelay iyo habnololeedkii isbedelay waxa kaloo jira type 3 oo la yiraahdo gestational diabetes oo dumarka marka xilliga uurka yeeshaan ku yimaada oo kaasuna inta ay uurka leedahay macaanka qabaysaa markay dhasho laakiin waxay u nuglaanaysaa marka dambe in caadiga si noocii dhiikarka ahaa markay uurka leeyihiin oo kale qayb horta waa qaybaha wixii sababayay marka kala yara duwan type 1 oo kale badanaa inta badan lama yaqaan wax sababa ayaa la yiraahdaa idiopathic baa la yiraahdaa laakiin wuxuu u badan yahay inay sababaan difaaca jirkeena u arkaa ganacii laga soo deynayay insulinta inaanu lahayn unugyadii soo deynayay insulinta ganac oo dhan maaha unugyadii beta cellskii insulin soo deynayay inay non self yihiin inaanu lahayn jirku oo yihiin wax jirka soo galay badanaa mararka qaarkood waa viral infection baa qofka ku dhacaya kaasaa markaa bedelaya u muujinaya inaanu waxaanu isku meeshii beta cellskii ka dhigaya waxaanu jirku lahayn markaasuu difaacii jirku laynaya markaas halkaa insulintii wixii soo deynayay ay ka baxayaan waa markaa la leeyahay waa insulin dependent oo carruurta yarba ku dhacaa waxaa yimid kii type 2gii isagu dee dhowr habbuu ku imanaya waxa weeye insulin resistance wax la yidhahdo imanaya oo ah in qofkii insulintii uu ka jawaabi waayo
markaa sonkortiina jirkii ku badanaysa insulin badan markaa ganciina waa lasoo deynaya hyper insulinemia imanaysa iyaduna insulintiioo badan iyo sonkortiina badan tahay insulintan dadka fahansiin maxay tahay insulintan waa dheecaankan ganca laga soo daayo ee dee sonkortii ka saaraya dhiiga geynaya halkii waxa weeyaan de waa maqsinkii la gelayay miftaaxii lagu gelayay maqsinka sonkorta ku gelaysay wey insulintan marka ganaca laga soo daaya ganaca waxaa laga soo daaya hormoono badan markaa qayb ka mid oo beta cells la yidhahdo ayaa soo deysaa insulinta marka waa dee type 1kana baaba'aysaa type 2kana wax badan soo deynaysa oo marka aan jirka jawaabaynin isweydaar waxaa kaloo jiraya hab kaloo markuu arko jirkii in insulin badan la soo gelinayo beerkiiba isaguna kayd badan soo deynaya marka dambe waxaa imanaya inuu dad daalo ganaci daalo yaraato insulintii lasoo deynayay waxaa kaloo imanaysa haddii qofku markaa miisaan badan leeyahay in unugyadii xaydh ah ay dhimaan ay qaadan ay dib maaskareeyaan meelihii ay insulintu qabsan lahayd marka waxyaabaha hadhowto daweynta soo gelaya waxaa ka mid noqonaysa qofka miisaankiisa dhimaa inay wax ka bedasho tayadii insulinta oo insulintiisa ay wax tal yara yeelato marka saasaa type 2ga dawooyinka loo siinaya dawooyinkii waa laba nooc wey qaarna ganacii bay tuujinayaan qaarna waxay samaynayaan tayadii bay yaro kordhinayaan markaa type 3gana waxa weeye kan dumarka oo iyagana waxaa jira balasentada ama mandeertan ilmaha iyo udhexayso hooyada ayaa hormoono soo deysa taasaa markaa insulin resistance samaysa inuu jir diido insulintii qaato markaa saasay ku imanaysa marka dumarkaasi way u nugul yihiin hadhowto in ay iyaguna yeeshaan macaanka macaano yaryar baa jira oo ay xanuuno kala sameeyaan ama dawooyinka qaar soo ay dee dadka ku keenaan dawooyinkan dadku aynu iibsanayno farmasiyada qaar baa qofkii u nuglaa macaanka haddii dee qaato macaankii hore u soo saaraya dawooyinka waxaa ka mid dawooyinka beta-blockers-dhikarka loo isticmaalo atenolol magaalada waxaa loo isticmaalaa sida waxaan u malaynayaa si qeyru caadi dadku isticmaalaan waxaa ka mid dawooyinka kaadida badiya dhikarka iyaguna loo isticmaalo waayo qof dadku way u kala nugul yihiin macaanka marka waxyaabaha soo dedejinaya haddii qofku uu isticmaalo dee hore u soo baxaya dawooyinka neerfaha loo isticmaalo qaar baa soo saara iyaguna macaanka soo saara marka badanaa dee waxa weeye dhakhaatiirtu imka dawooyinka qorayaan waa inay ka fakeraan dawooyinkan dawooyinka badanaa waa dawooyin oola dawooyinkan aan ka hadlaya macaanka soo saaraya dhikarka iyo waxaasoo dhan waxay leeyihin dawooyin cusub bay leeyihiin oo dee aan ahayn diabetogenic waxa la yidhaha gebigooda diabetogenic baa la yidhaha macaankay soo saaraan kulley dadka waan kala tagay marka dee igu yimaadaan klinika waan kala tagayaa dawooyinka qaataan oo dhan waan eega waan dee review garaya marka haddii ku jiraan dawooyinkooda waan ka saaraa oo dawooyin kaloo dee kuwii ku habboonay macaankana la jaan qaadayay ayaanu qoraa waxaan filaya inaanu aqoon kooban ka qaadanay aniga iyo dadka ku daawanayaaba macaankii iyo noocyadiisii iyo sababihii uu ku yiminayay markaad sharaxaysay waxa uu macaanku yahay sonkor baad ka hadashay iyo tamar jirka ku jirta iminka markii aad noocyadiisan ka hadlaysayna miisaan baad soo hadal qaaday cayilanaan maxaa iskaga xidhan buurnidii iyo yani macaankii waxaa iskaga xidhan buurnidii horta waxay ku imanaysaa dee noloshan dee imka isbedeshee barwaaqada noqotay dadkii miisaan baa fuulaya miisaankuna wuxuu ka imanaya cuntadii aan cunin baa dee deposit gelaysa sokortii cuntadii caadiga ahayn aan cunaynay marka intii dheeraadka intii fuelka la isticmaalo inta kale dee waxay noqonaysaa deposit bay gelaysaa ama muruqyadii baa lagu kaydinayaa ama jin xubni ama unugyadii xaydh ahaa ayaa laga dhigaya hadhowto iyagaa dib loo gubaya oo tamar laga samaynaya haddii ay timaado qofku dee baahi timaado loo baahdo aniga kulahaa waxyaabaha koosgareynaya type 2 wax ka mid ah in kaydkii beerku soo daayo oo kayd badan kusoo daayo dhiiga kusoo daayo markaa jirku qaadi waayo waxaa jirta xanuuno la kala dhaxlo oo aqoonta caafimaadku ay aada u sharaxdo oo iyadoo qofku habnololeedkiisii ay farayey ama uu farayay caafimaadku sidii loogu talagalay u wato oo miisaankiisa ka ilaalinayo oo yani duxdii iyo sonkortii jirkiisa ku jirtay uu kharash garaynayo oo jimicsanayo oo lugaynayo haddana qofka ku iman kara bal ka waran iyaga asxaabi horta dee macaanku family historyna uu leeyahay oo qofka familigiisa ay dhowr qof macaan qabtaa janiska ka badanaya
way uu ku qaadi karo dee isaguna macaan ku yeelan karo marka loo eego qof aan dee familygoodu lahayn qof aan familygoodu lahayn isaguna uu yeelan karaa ya laakiin Chinese kuma kala yar badanaya ya laakiin heredity as such dee macaanku maaha xanuun dee dhaxal ku iman hidda ku imanaya laakiin waxaa jira family history waxa weeyaan waa nuglaansho gene baa kulli ku jira waxba laga saaraya inuu gene baa ku jira ama qofkii Chinese-kiisii ka badinaya qofkii aan familygoodu aanu lahayn ya waxa laga yaabaa haddii qofkan familygoodu aanu lahayn inuu kan double Chinese-kiisu noqdo ama triple noqdo dee laban laab ama saddex laab noqdo ayaa laga yaabaa Chinese ku qaadi lahaa macaanka marka waa Chinese-kaas ku imanaya family history-ga inuu ku imanaya laakiin maaha toos loo kala qaadi maayo way aynu ka hadalno daweynta macaanka saddex nooc baad sheegtay saddexda nooc ee macaanka ama isku sibaa loo daweeyaa maqaabo baa loo kala daweeyaa waxay dadku ku jahawareeraan had iyo jeer waxyaalaha raashinka uu qaadanayo qofka macaanka qaba waxa laga yaabaa inuu dhakhtar ku yiraahdo heeda iyo maxayga cun mid kalena uu yiraahdo galleeda iyo maxayga cun mid kale uu yiraahdo bariiska jooji way ku dawaqaan dadku inta badan qofku markuu macaan isku arko judha ugu horeysa ee dhakhtarkii uu xaqiijiyo iyadoo baaritaankan aad ku dari doonto sida loo hubinayo qofkani way dhacdaa in mararka qaar qof aan macaan lahayn ba lagu sheego balka iyaga ka hor sida caadiga qofku badanaa marka taybanka kale xaaladdu ku yimaado waxa weeyaan ama ilmihii waxa la arkaya xanuun yar baa ku dhacayo marka xanuunka xaaladiisa baa ka daraysa waxa laga yaabaa inuu marka xaaladii waxa la arkaya kaadi badan haraad badan iyo xumadii ayuu yeelanaya waa ilmihii yar oo kale marka ka ugu horeysay shaybaarka laga qaaday ayaa laga yaabaa inuu soo baxaan kaadidii ay ka soo baxaan sukar aad fara badan marka dee taas waa wixii dadka yaryar laakiin markii type 2 ay timaado qofku waxa laga yaabaa soo dhowr sanood macaan leh inaan sugayn way ku xiran doon si incidental si lama filaan oo inuu dhakhtarku yimaado oo dee wax shaybaar yar laga qaado kaadida oo kale laga qaadiyo oo lagu arko sukar ku jirta kadibna la baaro leeyahay sukarta jirka ku jirta waa intee weeyaan muddo badan bay soo haysay soo saarista aan ka soo noqonaysa marka daweyntii baa imanaysa taybanku dee horta saan sheegnay si waa insulin dependent oo si insulin baa siinaya in yara waxa noqonaysa dee insulintaas markaa wadaya oo taas baa loo ilaalinaya iyadoo dee marka qaarkood xaaladu markay dee kala duwanaadaan qofku markuu iska caadiga yahay dee caadi uu insulin laakiin haddii xaalad caafimaad timaado oo ilmuhu bukoodo kale insulintii iyadoo waa noocyo kala duwan bay leedahay quleedi waa loo kala bedelayaa mid waa si loo kontrolo xanuunkiisa in loo kontrolo macaankii waa in labadaba la wada ilaaliyo xanuunkii iyo macaankii la wada ilaaliyo dadkii waaweynaa baa yimi dadka waaweyn waxa weeyaan anigu dee practice-kan isticmaala waxa weeyaan marka ugu horreysan qofka intuu doono waxa soo qabo macaanka ani markaa igu horreysay uu yimaado macaan igu yimaado qofka tala caafimaad baan siiyaa ya waxaan kala taliyaa cuntada waxaan kala taliyaa iyo wixii dee habnoololiidkiisu cayn ku salaysan yahay waxaana siiyaa wiig inuu soo cabiro wiigaa dabadeed marka ugu horreysa wiiga ugu horreeya dadka dawo ma siiyo waayo ma ogaan karto inuu qofku dawo u baahan yahay inuu wax laga yaabo uu kaliya u baahan yahay tala caafimaad oo la siiyo si uu u ilaaliyo eventually uu iman doonaa marka dambe dawo u qaadan doonaa laakiin intii la kari karo in qofkii dawadii laga daayo ya weeyaan anigu goolkayga inaan qofku markaaba dee dawo lagu bilaabine haddii qofku systemkiisa is-ceshan karayo ilaa intuu is-ceshan karayo halkaa lagu hayo bilaa dawadaa lagu hayo marka xaaladdu timaado dawadana markaa dawadii si step wise loo siiyo imika waxyaabo badan dadkan dee ka bedel waxa kamid ah dawooyinkiiyo meel hoose iskaga jira dadkoo iyagu isdaweeya tan aan wanaagsan qaadaa la yidhi waxa la yidhi kelmadda waxa la yidhi ayaan dadkii waxa la yidhi tan aan wanaagsan qaado marka kolley dadkaas tala maaha maahana the one size fit for all size kaliya dadku sidaa muuqeeniyo xajmigeeniyo u kala wada duwannahay iyo qof walba baahidiisa dawaa uga duwanaanaysa qofka kale markaa dadku isku dawo ma qaadan karaan iyagoo dee bini aadan wada ah ayaa haddana dawadii si kala duwan in loo siiyo qof walba loo designkii wixii dee ku habboonaan la siiyo ay dee habboon tahay ya oo gaarda loo wadiyo qof individually qof ahaan loo daweeyey isaga aan ahayn si caama aan loo daweynin ya wixii buug ku qornay dee maaha markan dee buuggii waa laga yimi marka practice-ka la yimaado
qofkii la daweynayo buuga caynkaas yiri qof ku daweyn maysid qofkii wuxuu ku daweysmay ku daweynaysaa marka kolta waxaan dib bulshadu inta ogeysan lahaa horta kelmadan ah kana wanaagsan inay meesha ka baxaan oo iyagu aanay isdaweynin markii dee inay dhakhtar u tagaan oo dhakhtarku talidiisa markaa ay raacaan ka waran haddii inta doctor cajab u imaado dabeetana uu qaab yidhaahdo sidaa yeel dawadaana qaado iyadoo tii socoto haddana doctor hebel u tago oo dabeetana aanan una sheegin inaan dhakhtar hore u tagay oo dawooyinkiisii aan qaadanayay haddana kana dawooyin kale ay siiyo bal ka waran arrintaa jawaab soomaa idaa ka sarada baahuna fasad almaraq marka waxa weeye haddaad marba dhakhtar u tagtid waxa weeye kulley qofkii xal lama gaari karo qof xal u noqon mayso muhiimadu waxa weeye qofkan xanuunkiisan dil la xakameeyo xalkuna kuma jiro dee in marba dhakhtar loo tago dhakhtar kaliya ayaa ku haboono haddii xitaa dhakhtarkaas marka hore aanu asiibin wixii sidii habooneyd mar labaadkaad ku noqotid dee uu asiibaya ya dee wax qofkii ku kharash badanaysaana marba dhakhtar u tag oo dhakhtar walba shaybaarka kaa qaado oo dawo gaaraha kuu qoro dee waxa weeye xanuunkiina ma controlmayo ya laakiin waxaa dad lagu control kara qofku inuu dib fahmo horta xanuunkiisa muhiimadda ugu weyn anigu qofka aan maalinta ay soo kaay horta waxa horta inuu fahmo qofkan xanuunkiisu inaanu hayn xanuun hargabada inaanu hayn bogsanaya xanuunkan waxa uu nolol noolaanayo xanuun noloshiisan wax weyn ka dhimaya ma aha haddii uu fahmo laakiin haddii uu dib fahmi waayo marba siraado meel xal ka doono waxaa arkaysa dad badan oo koran malab xal ka deeya malabka imika shinida laba waa loo dhigaa sokor waa loo dhigaa ya sonkor geedii kama keento dhabaqa kama keento dhirba ma jirto wadankii waa la shitay dhirtii